magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer ayaa maanta lagu caleema saaray Suldaan Maxamed Nuur Cali oo ka mid noqon doona salaadinta Somaliland gaar ahaan salaadinta gobolkani Togdheer waxaana caleema saarka suldaankani ka soo qayb galay qaar ka mid ah salaadinta cuqaasha waxgaradka maamulka gobolka Togdheer iyo dadweynaha aad u tiro badan oo ka mid ah beesha Xasan Maxamed ee suldaankani noqon doona hoggaanka iyo marti sharaf kale oo aad u tiro badan dhammaan dadkii ka hadlay munaasabadaasi waxay si weyn u soo dhaweeyeen una duceeyeen Suldaan Maxamed Nuur Cali oo ka mid noqon doona salaadinta Somaliland waxaan hadaladoodii ka mid ahaa aqoon leh waxgarad leh bulshada u shaqeeya Somaliland aanay ka caban doonin ayaanu halkan hadaanu beesha Xasan Maxamed nahay ugu soo diyaarinay Somaliland waxaan leeyahay suldaanka naga gudooma Somaliland waxaan maanta leenahay waanu ka soo fiirsanay waanu soo laylinay waanu keenay naga gudooma shacabku waxay ka yeelo suldaanka ilaahay fududeeyo hawsha lagu mid usmaaye waa mid fudude sida aad u fududeysatay ugu dadaasho ku fududaanaysaa ilaahay ka yeelo kii u dadaala ee lagu garab galo ee lagu caleema saarka suldaanka Maxamed Nuur Cali oo maanta halkan ay ka dhacayso xafladiisii caleema saarka halkan nagula soo qayb gashay ee soo ajiibtay sida wacan sharafta la noo soo ajiibtay waan salaamayaa ka maanta inagu soo beeray waxa weeye suldaan aad u munaasiba aan ogaano oo gacanta ku hayno ka dhigo kii isku wada dadka oo dhan ee aan cid noqon ilaahay ka dhigo ilaahay ka dhigo kii aan madaxtooyada u istaagin ee beeshiisa ku xidhno waxa cadeynaysa suldaanka Suldaan Maxamed waxa isu raacay laba walqalood والغش هو وحويه واتيلو مقعابي سلطنتي سي سلطان محمد وهرته والغدي شمانته وتاغنتاي gobolha waxa noo farxada laba dhacdo oo madashan koobsatay sidii tahay caleema saarka suldaanka midina tahay degmada cusub ee ku soo korodhay gobolka Togdheer oo ah degmadii 13aad ee gobolka Yeesho ugu dambeyntiina Suldaan Maxamed Nuur Cali oo ahaa suldaankii madashani lagu caleema saarayay ayaa u mahad celiyay cid kasta oo ka soo qayb gashay munaasabadani isagoona ka dhawaajiyay inuu cadaalad iyo sinaan ku hagi doono beesha u dooratay hoggaanka iyo beelaha kale ee Somaliland mar labaad iyo mar saddexaad ba Ilaahay baa mahad leh mar labaadka waxaan aad ugu mahadnaqayaa dadweynaha sharafta leh ee daraaday u soo bixiyay hoolkan weyn isagoo qof waliba dan uu leeyahay jirto dan gaar ah qof waliba uu leeyahay waxaan aad u salaamaya salaadiinta waxaan salaamaya awqaasha waxaan salaamaya ciidamada iyo waxaan ku dhaayay iyo barasaabada iyo nimanka ciidan dadka dawladda u shaqeeya danahoodii ka yimi ee berbere ka yimi ee hargeysa ka yimi ee burca xafiiskeeda ka yimi gidda waan wada salaamaya waxa kale aan salaamaya qof kasta oo hawsha aan maanta aan joogo madasha aan jooga maanta qof kasta oo wax ka qabtayna waa salaamaya وعبد الرحمن روبلي عبد الله عبد الرحمن تريكه تلفزيون عالمي كلسن تي في مقالة برعو